waxaa halkan inooga bilaabanaya qaybtii koobaad barnaamijka sirriyun lilgaaya ee ajraasul khatar kaasoo uu diyaarinayo wariyahan iminka aad arkaysaan Yusri Fuda. waxa uu ku bilaabay 2002 bishii xagaagii in uu ka yimid uu tagay magaalada Karachi isla markaana uu iminka London yimid. waxaan goostay buu yiri inaan ogaado cidii ka mas'uulka ahayd qaraxyadii ka dhacay 11 September. Khalid Sheikh Mohammed nin la yiraahdo ayaa wuxuu igu yiri isagoo ah gudoomiyaha guddiga militariga al-Qaacida haddii aad la kulanto dadka degan sarta uu tilmaamayo MI6 waxa ay ku leeyihiin buu leeyahay in ay ku arkayaan qof aad u xun marka iska ilaali. 5 bilood kadib waxaa la xiray ninkan la yiraahdo Ramzi bin Shayba oo kamid ah raggii uu kula soo kulmay Pakistan. 12 bilood kadibna waxaa la xiray Khalid Sheikh Mohammed oo ah isna ninkii labaad ee madaxda al-Qaacida ee uu ku soo arkay wadanka Pakistan. iyaga ayaana u soo qiray in al-Qaacida ay mas'uul ka ahayd 12 September. waxaan leeyahay buu leeyahay wariyahan markii ay soo sheegeen arintaas inaan raadiyo cidii kale oo ah saraakiishii Mareykanka ee dhibaatada loo geystay waxaan aniga ahay buu yiri wariyaha kaliya ee adduunka ee isku howlay hawshan xaqiiqdeeda inuu ka daba tago oo uu soo ogaado. waxaan isku dayayaa inaan markii aan al-Qaacida ka ogaaday inay iyadu mas'uul ka ahayd madaxdii Mareykanka iyaguna aan isku dayo intii aan heli karo inaan ka xaqiijiyo waxa ay ka og yihiin dhibaatadii loo geystay dalkooda 12 September ee sanadkii 2001 iyadoo dad fara badan ay dhinteen. Mareykanku waxa kaliya ay ku celcelinayeen waxay ahaayeen in Bin Laden uu mas'uul ka ahaa. saatee waxaan isweydiiyay inay arintaas u ahayd Bin Laden in la iska samaysanayo iyo al-Qaacida oo qorshe kale uu jiray. arintan baaritaankeedii ayaan iminka bilaabaya. markii uu soo ogaaday wariyaha in al-Qaacida ay qiratay sida uu muusan uga harin waxa uu bilaabayaa inuu Mareykanka ka ogaado cid ay u maleynayaan inay weerareen sarahoodii iyo xarumahoodii dawladda. waxaan tagay buu yiri golihii odayaasha Mareykanka xaruntoodii waxaan la kulmay naadi la yiraahdo Bin Laden qolada u gaarka ah. hadalkan ayaan u jeediyay simply because he spoke the minds of so many people. goobta aan ka hadlayay waxaa soo xaadiray suxufiyiin iyo qolooyin kale oo ka tirsan CIA-da Mareykanka. waxay la yaabanaayeen ninkan Carabka ah ee wariyaha ah oo ku adkaysanaya inuu soo helay dad sheeganaya inay yihiin maskaxdii ka dambeysay 11 September Mareykankana ay la yihiin. hase ahaatee waxa uu leeyahay wariyaha waxay ujeedkaygu ahaa inaan helo ninkan la yiraahdo Michael Shua. لقد قالها يسري فودا صباح اليوم. Yusri Fuda ayaan saakay waxa uu igu yiri waxaan la soo kulmay ragii maskaxda ka ahaa qaraxyadii 11 September laakiin aad ayaan arinkiisa ula soconaynaa ayuu meesha ka sheegay. laakiin waxaan ogaaday buu yiri Michael Shua inuu ahaa sargaal sare oo CIA-da ka tirsan. buugaag buu qoray buu yiri haddana waxa uu ku qoray magacyo aanu isagu lahayn. waxa uu ka hadlayaa markii dambe Michael Shua arintu markii ay ku cadaatay oo uu garan kari waayay sida ay wax u dhaceen inuu jawaab cad ka bixiyo in uu is-casilay. markii ay dhamaanaysay ka hor sanadkii 2002 guddida taxqiiqa ama baaritaanka ee golaha baarlamaanka Mareykanka ayaa bilaabay inay su'aalo weydiiyaan raggii madaxda ka ahaa qaybihii amniga sirdoonka iyo hay'adihii basaaska wadanka Mareykanka
waxaa ugu horreeyey dadkii su-aalaha la weydiinayay Condoleezza Rice oo xilliga ahayd la taliyaha madaxweyne Bush ee dhinaca ammaanka. توماس كين رئيس اللجنة شريك في مؤسسة أمر دهاس. ninkan waxaa la yiraahdaa Michael Roberts waxa uu ka mid yahay qoraayaasha caanka ah waxa uu ka sheekeynayaa dadkii su'aalaha ugu badnaa la weydiinayay oo arinta ay quseysay. waxa uu leeyahay waxa uu ninkani ka mid ahaa dadkii wax la qoray Condoleezza Rice. arintu way caddahay Mareykanku waxa ay aad xooga u saarayaan inay dawladooda si fiican jawaab uga bixiso wixii ka dhacay dalkooda. إنه أثر في مستقبلنا، نحن أثر في مستقبلي أنا وأبنائي، وأثر في العراق، وأثر في أفغانستان، وأثر في كل شيء. فلماذا يستأسون madaxweynaha Mareykanka iyo dawladdiisa arin baa ku furan. wariyuhuna waxa uu doonayaa inuu ogaado meesha ay wax ka socdaan. kooxdan ayaa aad diiradda loo saarayay waxaa la sheegayay inay ahaayeen dad xag jirayaal ah oo dawladda Mareykanka madax ka ahaa. xogayihii difaaca la taliyihii ammaanka madaxweynaha iyo group kale laakiin si kastoo ay tahay Kongareesku waxa ay sugayeen su'aal ahayd yaa ka mas'uula waxa dhacay. madaxweyne Bush iyo madaxdiisii la shaqeynaysay ayaa la sugayay. نتائج عملها في تقرير اقترب من 600 صفحة. waxa ay bilaabeen guddigii arinta loo xil saaray inay soo saaraan 9kii bishii 11aad inay soo saaraan qoraallo ka kooban 600 oo safxadood. إذا اعتقلنا أسامة بن لادن كما أتمنى ربما تكون هناك معلومات جديدة. madaxii guddiga Thomas Kean ayaa iminka hadlaya waxa uu leeyahay haddii aan heli lahayn dadkii dhibaatada geystay qaarkood waan dabageli lahayn laakiin hadda wax aan dabageli karno male. laakiin wariyaha waxa uu leeyahay aniga waxaan soo helay raggii arintan ka dambeeyay oo markii dambe Mareykanka ay qabteen inay iyaguba ii qirteen inay iyagu mas'uul ka ahaayeen wixii ka dhacay Mareykanka. wariye Yusri Fuda waxa uu og yahay in al-Qaacida ay mas'uul ka ahayd oo ay u sheegeen ase aatee Mareykanka ayaa arinkaasi si weyn uga warwareegsanaya oo waxa ay san ku adkaysanaynin inay markiiba ku dhawaaqaan. كان الصباح صباحا جميلا بينما كان سكان نيويورك يتوجهون إلى العمل ثم فجأة laakiin qoraalkan waxa la soo saaray guddigii baarlamaanka u qaabilsanaa dabagalka markii waraysyada ay sameeyeen oo madaxdii Mareykanka ay la hadleen ayay soo saareen qoraalkaas oo 600 oo safxadood ka kooban. laakiin ujeedka guddiga iyo baarlamaanku waxay ahayd inay su'aalo adag weydiiyaan ninkan oo aad iyo aad ay u doonayeen waxa uu ahaa ninkii markaasi isagu u qaabilsanaa aqalka cad la dagaalanka argagixisada. laakiin raggan qoraalada ah ama qoraayaasha ah waxay warbixino ka bixinayeen sida ay u arkayeen warbixintii guddiga ay soo saareen. dhammaantood waxay isku raaceen in qaladaad badan ay warbixintaasi ku jirtay oo aanay si cad u cadeynaynin ciddii ka mas'uulka ahayd wixii ka dhacay 11 September sanadkii 2001 Mareykanka. في أحد هوامشه أن خالد شيخ محمد اعترف أثناء التحقيق بأن waxyaabahan warbixinta lagu soo saaray waxa ay dhaceen markii la qabtay Khalid Sheikh Mohammed iyo Ramzi bin Sheebah oo ahaa labadii qof ee uu la kulmay Yusri Fuda. si qaldan ayaa taqriirka ama warbixinta loogu soo daray iyagoo la leeyahay waxa ay wax badan kala socdeen in wadanka Mareykanka dhibaatooyin xoog leh ay ka dhacayaan. waxa uu leeyahay wariyuhu qaladka laga tafsiiriyay kulankii aniga iyo Ramzi bin Sheebah iyo Khalid Sheikh Mohammed miyaa qaldan mise aniga ayaa qaldan. hase ahaatee waxa uu iminka isku dayayaa warbixintaas laftirkeeda oo sida qaldan Mareykanka ay u turjumeen inuu baaritaankeeda dabagalo. waxaana uu leeyahay waa qaldamay warbixintaasi haddaba waan arki doonaa. من أوله إلى آخره. It's kind of funny the footnotes say من المضحك أن الهوامش تقول للتأكد من هذا انظر تقرير CIA رقم 27 مع خالد شيخ محمد لكننا لا نستطيع. qoraagan waxa uu wax ku qoraa majalada la yiraahdo New York Times. waxa uu leeyahay warbixinta ay soo saareen guddiga Mareykanka
wax lagu qanci kara ma ahayn CIA-dana fursad uma siinaynin inay shacbiga Mareykanka ay ku qanciso wixii dhacay in ay ahaayeen waxyaabo la iska mala awaalay oo markaa iyagu ay ka seexdeen iminka wali waxaa soconaya in laga daba tago wixii dhacay Yusri Fuda waxa uu raadinayaa qoraalka laga been abuuray ee ay guddida soo saareen in ay markaasi xaqiiqdiisa helaan wuxuu yiri nin la yiraahdo Philip Selico ayaa igula ballamay hotelkan oo ka tirsanaa mas'uuliyiintii guddida ee soo saartay warbixinta qaladka ah waqti baan u qabtay ma imaanin fursad kale baan siiyay mid kale ayaan siiyay waqtiga uu ila ballamayna waa uu ii gooyay waxaan la hadalnay buu yiri guddidii soo saaray warbixinta mid wax nala hadla waan weynay laakiin Michael Shower ayaa isaguna cudur daartay maadaama uu iscasilay waxay nagu cadaatay waxaan tagnay xaruntii operationka CIA-da ninkii markaa madaxda ka ahaa ayaan weydiinay inuu wax uu naga yiraahdo waxa dhacay لماذا يا سعادة السفير لم تتصل بي بعد لقائي بالعقول المدبرة؟ maxaad wax iiga weydiin laadihiin maadaama aan la soo kulmay maskaxdii ka dambeysay 11 September hase ahaatee Coffee Black waxa uu leeyahay adiga waad ka hadlaysaa telefisyon laakiin waxa aad aaminsan tahay moogi waxa aad gashayna waa arin sirdoon marka arinkaas ma u malaynayo dadka ku lugta leh ayaa kala hadli doona isagoo aad uga shakisnaa wariyaha iyo sida uu soo dhaadhacay uu u yimid halkan oo ah meelaha ay degan yihiin oo ay joogaan madaxda sare ee CIA-da sargaalkan waa sargaal sare oo ka tirsan CIA-da Mareykanka waxaana uu diiday inuu tafaasiil siiyo wariye Yusri Fuda laakiin baarlamaanka waxa ay su'aalo badan isku dayayeen inay wax ka ogaadaan oo ay raadinayeen muddo ninkan ilaa markii dambe uu baarlamaanka hor yimaado waa ninka White House-ka u qaabilsan la dagaalanka argagixisada waxa uu baarlamaanka hortiisa ka cadeyn doonaa dawladda Mareykanka in shacabkeedii aanay waxba u qaban oo ay fashilmeen waxa uu leeyahay ninkan waxa uu ahaa maalintaasi oo 11 September ay dhacaysay ninkii Mareykanka maamulayay markii madaxdii Mareykanka ay kala carareen oo ay dhuunteen baarlamaanka hortiisa ayuu ka qiray wixii dhacay Your government failed you. إلى هؤلاء في هذه القاعة dadka jooga hoolkan oo uu la jeedo baarlamaanka Richard Clark oo ninkan waa ninka u qaabilsan la dagaalanka argagixisada aqalka cad iyo dadka TV-ga kala socdaba waxa uu sheegay dawladda Mareykanku inaanay waxba ka qaban shacabkeeda oo ay dayacday aniga nafteydana waxaan ka mid ahay dadkii hawsha dayacay buu yiri أسألكم التفهم والصبر laakiin waxa ay ka sugayeen xubnaha Mareykanka ee baarlamaanka uu la hadlayay inuu arintii cadeyn iyo tafaasiil dheer ka bixiyo inta uu ku koobay waxa uu yiri annagu arinta waanu ku fashilanay wariye Yusri Fuda waxa uu dabagalayaa sidii uu sirta mar kale ku soo saari lahaa 22 Abriil sanadkii 2002 ayuu soo gaaray Dubai waxa uu ku yara hakaday magaalada Dubai waxaana uu ay ahayd buu leeyahay markii aan Pakistan ka imid oo aan madaxdii al-Qaacida ka soo xaqiiqsaday oo ay soo siiyeen cadiimo hordhac oo ay ku muujinayaan in ay iyagu mas'uul ka ahaayeen qaraxii dhacay أول اعتراف مباشر من القاعدة بأنها وراء 11 من سبتمبر hotelkii baan soo degay waxaan ahay qofka kaliya ee ay al-Qaacida u qiratay in ay yihiin kuwii ka dambeeyay 11 September sida oo ay tahay hadalkaas waxaan raadinayaa wali xogtiisa iyo sida al-Qaacida ay u suuro gashay sir culus baan hayaa waan qarinayaa waxaana ogahay haday baxsato inaan khatar badan galayo ninkan waa qoraa wax ka qora arrimaha islaamka iyo siyaasadda fahmi ayaa la yiraahdaa waxa uu kula kulmay oo uu kula sheekaystay magaalada Dubai waxa uu weydiinayaa waxa uu ka og yahay 11 September wixii ka dhacay laakiin marnaba ka warramay maayo wariye Yusri Fuda wixii uu hayay cid uu kala sheekaysanayna ma jirto في كل شارع وفي كل منحنى فيما تحركت الخطة من طور إلى آخر أحد أحدث استطلاعات الرأي في أمريكا
أوضح أن نصف سكان نيويورك waxaa la sheegay in dadka magaalada New York kala bar markii cod laga qaaday oo afti laga sameeyay in ay sheegeen in dawladoodu ay wax badan kala socotay wixii dhacay oo aanay marnaba suuragal ahayn dakhliga badan ee ay qaataan hay'adaha sirdoonka Mareykanka CIA iyo FBI-du inaysan sidaa wax ku dayicin ee wax ku ogaayeen. waxaa fakarka sidoo kale qaba dad kale oo iyaguna ka tirsan aqoon-yahanada Mareykanka. أن زياد جراح كان قد استوقف هنا في طريق عودته من أفغانستان يوم 30 من يناير كانون الثاني عام 2000. sanadkii 2000 Ziyaad Jarraax oo kamid ahaa raggii diyaaradaha isku qarxiyay ayaa halkan airportkan lagu qabtay isagoo ka yimid Afghanistan. 4 saacadood ayaa la weydiiyay waxaana uu cadeeyay inuu doonayay inuu diyaaradaha ku barto wadanka Mareykanka. dadka qabtayna waxay ahaayeen sirdoonka Mareykanka. maxay u qaban waayeen بالعودة إلى ألمانيا. Khalid Sheikh Mohammed halka buu maray waxaana uu ku noqday إلى ألمانيا Jarmalka. بعد ذلك بنحو شهر مسلحا بمعلومات. waxa uu yiri anigoo wada ilaa dhowr macluumaad oo wali baaritaan wada ayaan ka soo degay Jarmalka. iminka waxa uu joogaa Jarmalka. waxaan doonayaa inaan ogaado raggii madaxda ahaa ee howlgalka fuliyay qaarkood inay deganaayeen magaalada la yiraahdo Hamburg oo hadda uu iminka dhex socdo gurigii uu deganaa mid kamid ah raggii qaladaadka ama qaraxas ku sameeyay Mareykanka. لكن شغفي كان يزداد يوما بعد يوم. كنت قد اضطررت إلى ترك شرائط اللقاء معهما على أن يجداهما طريقة لتوصيلها إلي. meeshan waxaa deganaa labadii qof ee kula soo kulmay Pakistan ee markii dambe la xiray oo iyagu ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 11 September. hase ahaatee wax badan kama ogaanin buu yiri markaan Jarmalka tagay. waxaan dib ugu soo laabtay magaalada London xafiis aan halkaa ku leeyahay. ممن سميته أبا بكر الوسيط الذي كان markaan xafiiskaygii London ku soo laabtay waxaan arkay warqad fakisa oo ii soo diray nin la yiraahdo Aba Bakr. الذي كان معنا في المطار وحدثته في الموضوع وإن شاء الله سنقوم بإرسال الأغراض إليكم وكن مطمئنا سوف أتابع معهم وأتواصل معكم بالهاتف. waxa uu sheegay inuu ninka la yiraahdo Abu Bakr كنت في القاهرة oo ahaa ninkii isku xiray isaga iyo qoladii al-Qaacida ee madaxda ahayd inuu warqad u soo diray. markiiba waan soo duulay magaalada Qaahira ayaan imid buu yiri. waxaan la kulmay Maxamed Cadda oo ahaa kooxdii weerarka fulisay 11 September ninkii madaxdu waa aabihii gurigii oo Masar ku yaal ayaan imid. aabihiisa waxa uu ii sheegay inaanu marnaba isagu aaminsanayn in wiilkiisu uu isqarxiyay balse uu aaminsan yahay inuu xiran yahay ama la dilay. أعطاني نسخة منه إلى قناة الجزيرة بشكل مباشر فأذاعتها رسالة لا لبس فيها. فإلى أمريكا صنعوا anoo jooga magaalada Qaahira ayaan waxaan ka arkay telefishinka Al Jazeera isagoo ay sii deynaya cajalad ay soo duubeen al-Qaacida. asaatee cajalada wali wax faahfaahina kama soo bixin. aniga wali waxaan haystaa cadaymihii horudhaca ahaa ee al-Qaacida. cid aan kala hadlay ma jirto xitaa xafiiskaygii magaalada Dooxa ee dalka Qatar. waxaan rabaa ilaa aan arinka ka dul tago in aan cidna waxba u sheegin. meel kasta oo xog la igu sheegana waan u duulayaa. كان رمزي قد أكد لي أنه سينشغل هو نفسه بالإشراف على إنتاج فيلم وثائقي عن 11 من سبتمبر من خلال شركة السحاب. أثناء وجودي أمام منزل زياد جراح في مرج البقاع اتصل بي فجأة أبو بكر. waxa uu yiri waxaan u soo duulay Lebanon. waxaan imid guriga la yiraahdo Ziyaad Jarraax oo kamid ah raggii qaraxyada fuliyay. anigoo gurigii aan gelin baa telefoon waxa uu ii soo diray ninkii la yiraahdo Aba Bakr. waxaan soo dhaxgalay meelihii ay isku dayayeen inay ku dhuuntaan oo ahaa goobo lagu caweeyo oo ku yaala magaalada Lebanon. dadna way caweynayaan dadna halkan waxay u soo galeen buu leeyahay inay iyaga siday aaminsan yihiin diinta u dagaalamaan si ay halkan u dhex maraan oo ay hadafkooda u gaaraan. meel kasta oo ay mareen ayaan aniguna isku dayayaa inaan maro si aan xaqiiqda uga daba tago. في 14 من يونيو حزيران عام 2002. 14kii bishii Juun sanadkii 2002 ayaan Dooxa ku soo laabtay. 50 يوما شهران تقريبا. 2 bilood ku dhawaad iyadoo laga joogo
markii ay dhacday in aan la soo kulmay raggii alqaacida xafiiska ayaan ku soo laabtay anigoon cidna waxba u sheegin laakiin baaritaano badan wada dooxa ayaan iminka joogaa iyo xafiiskii jaziira هدأت الدوحة في عيني هدوءا أهدأ من هدوء الدوحة. magaalada dooxa 14 juun waxay ahayd meel aad u degan laakiin waxaan la yaabay ramzi bin shayba oo ahaa mas-uuliyiintii alqaacida ee aan bakistaan kula soo kulmay waxay igu yiraahdeen ninkaas arag oo fakar ka qaado laakiin isaga markii aan la kulmay ninkan qoraaga ah waxa uu ii sheegay inaysan wax xiriir lahayn raggaas laakiin laga yaabo qoraallo badan uu qoray inay arkeen waa doctor Abdullahi An-Nafs لكن لا شك هذا يدل على متابعة من طرفهم إعلامية aniga marnaba raggaas ma arkin mana aqaano laakiin waxa laga yaabaa in waxyaabihii aniga aan qorayay maadaama quraan ahay ay arkeen sida ay ku yiraahdeen bal ninka u tag oo waxa uu ka aaminsan yahay 11 September wax ku ogow ilaa iminka waxa uu marayaa wariyaha dariiq uu ku doonayo inuu xogta dhabta ah ku gaaro isagoo wada cid kasta inuu fakarkooda dhageysto wixii ay wax ku og yihiin uu ka ururiyo آن الأوان للأمة الإسلامية أن تعيد صياغة أفكارها من جديد aniga waxaan ahay buu yiri qoraa aaminsan ummadda islaamka in fakarkooda la dhageysto ay cabiraan caburinta laga daayo gumaysiga maskaxiyankaana laga daayo من الدوحة إلى كراتشي كان قراري بالعودة إليها في ذلك الوقت قرارا أكثر من جريء فإلى جانب اجتماعي waxaan ka imid dooxa waxaan soo degay Karachi oo dalka Pakistan ah كانت هذه المدينة قد شهدت magaalada waxaa ka jiray qaraxyo dhibaatooyin hoteelo ayaa la weeraray dad ajaanib oo reer galbeedana waa la dilay magaalada aad bay u qasan tahay Karachi indhaha meel walba ayay ku furan yihiin wada kasta waxaa jooga ciidan كان الأمريكيون يعلمون وكان الرئيس الباكستاني قد اتخذ قراره الاستراتيجي بالانضمام إلى الأمريكيين في madaxweynihii Pakistan xilligaasina waxa uu go'aansaday inuu si dhab ah ula shaqeeyo Mareykanka si looga daba tago dadkii dhibaatada u geystay Mareykanka wafdi Mareykan ayuu la kulmay isagoo si dhab ah ugu ballan qaaday Pakistan inay diyaar u tahay la dagaalanka argagixisada waxa uu joogaa Karachi wali waxa uu doonayaa ninkii Abu Bakar ahaa ee isku xiray markii hore isaga iyo raggii alqaacida inuu mar kale la kulmo si uu xog uga soo helo توهوني في شوارع كراتشي كيف ساقوني خارجها ووضعوا عصابة على عين mar kale ayaa la ii qorsheeyay inaan la soo kulmo raggii madaxda ahaa ee alqaacida في انتظار أن يفتح الباب waxa la iga xiray indhaha meel la ii geenayana ma garanayo waxa la doonayaa in la ila hadlo من وجهة نظر فريق محلي لم يكن يعلم waxa la iga reebay kooxdii localka ahayd ama gudaha ee ila shaqeynaysay ee wariyeyaasha kala ahaa لإنجاز ذلك عزم baabuurka ayaa la ii saaray wixii boorsooyina aan watay waxaan la ii wadaa meel aanan garanayn laakiin waxaan doonayaa بعدها بساعات قليلة in aan wax soo ogaado في هذا الفندق waxaan la kulmay Abu Bakar oo ahaa ninkii isku kaana xirayay aniga iyo madaxda alqaacida isaga ayaa halkan igala hadlaya حتى التليفونات انا عندي 4 تليفونات والله 4 تليفونات احنا مصلحتنا فهمني يعني احنا اكلمك انا الصراحه مصلحتك انت مثلا اذا كان عندنا احنا انت راجل ليش محسوب على مثلا واحنا في نفس الوقت Abu Bakar waxa uu sheegayaa aragtida madaxda alqaacida inay aad u adag tahay isagana uu yahay isku xiriiriyaha cabsi badanna ay jirto Mareykanka sirdoonkiisa iyo Pakistan ay aad madaxda u raadinayaan sida darteed la kulanka Ramzi bin Shayba iyo Khalid iyo ragga la midka inay aad u adag tahay
هو خالد مش فاهم. لا فاهم فنية سواء في ألمانيا أو في بريطانيا أو في مصر. dhowr meel ayaan tegay xog baan raadinayay Bakistan Mareykanka Jarmalka marka waxaa loo baahan yahay in xogtaas adiga la shaqeyso fadlan الولايات المتحدة الأمريكية تلك التي سماها بن لادن ومؤيدوه رأس الأفعى في طريقهم إلى 11 من سبتمبر. Mareykanka waxa ay ku tilmaameen buu leeyahay Osama bin Laden iyo raggiisa inay yihiin abeeso madaxeed waxaana loo baahan yahay in iyaga la target gareeyo oo la dilo waxaan isku dayay inaan booqdo meelihii ay wax ku barteen duulimaadka diyaaradaha يريد أن يلتحق بزميله زياد جراح في هذه المدرسة في فينيسيا غربية فلوريدا على وجه madrasadan waxay ku taalaa galbeedka Florida waa halkii qaar ka mid ah diyaaradaha ay ku barteen macalinkan waxa uu ka mid ahaa raggii baray diyaaradaha Ziyaad Jarraax iyo raggiisa ayaa halkan ka baxay waxaan isku dayayaa inaan xaqiiqdii ka daba tago Ziyaad Jarraax inuu halkan yimid sida al-qaacida ay ii sheegeen قال لا أدري. أثناء وجودنا في فينيسيا اتصل أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي intii aan joogay dalka Mareykanka waxa ila soo hadlay mid ka tirsan FBI da Mareykanka تجنب العميل أن يتحدث إلي لكن حدوثا من نوع خاص waxa uu joojiyay inuu si dhab ah noola hadlo في اليوم التالي laakiin كنا نصور annagu waxaan sawiranay meelihii ay xeebta ahaa ee ay joogeen raggii markii ay qabanqaabinayeen weerarkooda الآن بين يديه. هرولت في رحلة طويلة متصلة من واشنطن إلى لندن إلى دبي إلى كراتشي. waxa uu sheegay inuu la soo hadlay ninka la yiraahdo Abu Bakar waxaana uu sheegay inuu u hayo cajalad muhiim u ah isaga في الفندق نفسه. isla waxaan ka soo tagay buu yiri Mareykanka London Dubai ayaan soo maray kadibna Karachi ayaan imid isla meeshii aan ku kulannay ayaan kula kulmay Abu Bakar قال لي إنه تركها وديعة لدى أحد الأخوة وأنه سيخرج الآن كي يعود بها. قبل خروجه أعطاني قرصا به رسالة من رمزي فقط لأن الزمن تجاوز أهميتها الأمنية بعد القبض على رمزي وخالد نكشف الآن النقاب عن markii hore waxa uu igu xujeeyay in lacag fara badan layga doonayo haddii aan helayo xog dheeraad ah laakiin markii dambe lacagtii wuu iga daayay cajaladii buu isiiyay cajalada waxaa soo diray Ramzi bin Shaybah الملامح الموجودة عندهم في الصور. يحبذ أن تكون لكم مقابلة مع الدكتور عبد الله النفيسي والأستاذ عبد الباري عطوان. هناك إصدار جديد لمؤسسة السحاب waxaa ku qornaa buu yiri in ragga aan xogta ka raadinayo ay ka mid yihiin rag qorayaal ah oo Carab ah oo aad loo yaqaano waxaa sidoo kale uu sheegay cajaladaha uu la kulmi doono ama heli doono in ay soo sameysay kooxda la yiraahdo as-saxaab oo ah koox editinka ama farsamada dhinaca videoga u sameysa al-qaacida waxaana uu sheegay in aad saari doonin wax muusiga cajaladahaas marka aad hesho waxaad samayn doontaa inaad saarto nashiidooyinka noocyadaas ah iyo waliba axaadiis iyo quraan وجزاكم الله خير. ثم عاد أبو بكر لدى منتصف الليل وليته ما عاد. عاد مكفهرا waa igu soo noqday mar kale Abu Bakar mar kale ayuu hadana ii yimid Abu Bakar warqad buu ii keenay tolow maxaa ku qoran نتعرض لضغوط كثيرة هذه الأيام. waxa uu ii sheegay inuu xog dheeraad ah hayo tan ay ahayd horudhac mujaahidiintuna ay u baahan yihiin maadaama cadaadis fara badan hayso lacag aad u fara badan xogta rasmiga ah ee qirashada al-qaacida hadii uu doonayo waxaan u baahanahay buu yiri $1 milyan si aan hawsha dagaalka aan ku jirno u sii wadno ilaahay dartii sida uu warqada iigu soo qoray waxaana uu ii sheegay
in uu doonayo in arrinkaasi aan laga wada hadlin. waxa uu yidhi xogta waxaa sidoo kale raadinaya safaaradda Mareykanka ee Bakistan. taas waxa ay ogoshahay lacag badan. waxaad samaynaysaa lacagta waxaad ku ridaysaa xaqiibad ama boorso Samsonayda. waxaad u dhiibaysaa nin jooga farmashiga halka ku yaala magaciisa waxa la yiraahdaa noocaas. ninkaas ayaad siinaysaa lacagtaas. haddaadan dhiibin wax xoga oo aan ku siinayno intaa ka badan ma jirto. tala way ku caddahay iminka Yusri Fuda. waxaana uu sheegay telefoonka ay ka wada hadlayaan 2 maalmood kaliya in la isticmaalayo sidaana uu lacagtu ay tahay inuu ku bixiyo. xog baa loo sheegay lacagtiina ma wado. waxaan socsocday wadooyinkii Karaaji. waxaan raadinayaa qaabka ugu sahlan ee aan xogta muhiimka ah ku heli karo anoon bixinin $1 milyan. على يقيني بأن أي من رمزي أو خالد لم يكن على علم بهذه المساومة. عدت إلى لندن وأنا أكثر يقينا. Yusri Fuda waxa uu ku soo laabtay magaalada London isagoo aan haynin wax lacag ah oo ahayd $1 milyan sida uu ku xujeeyay ninka la yiraahdo Abu Bakr hadii uu doonayo cajaladaha xaqiijinaya sawirrana muujinaya oo markaa tusaya in al-Qaacida ay ka dambeysay 11 September. waxa uu yimid xafiiskiisii Al Jazeera ay ku lahayd magaalada London. waxa uu ka soo degay qaybtii dabaqa ee xafiiskiisa uu ku yaalay. waxa uu qorsheynayaa markan inuu iska fariisto oo uu wax qorid bilaabo qaabka uu u sii socodsiin karo hawsha uu wado. alla maxay ahayd maalin dhib badan. waxaan hayaa xog fara badan laakiin xaqiiq badan baa iga hartan. arinta meesha taala waxay tahay waa badeeco qof kaliya haya oo meel kale aad ka helaysa aanay jirin. waxaan bilaabay inaan kombiyuutarkaygii fariisto xafiiska. waxaan qorsheynayaa qaabkii aan wax u qori lahaa. waxyaabaha aan arkayay oo macluumaadyada aan hayay waxaa ka mid ahaa markii aan la soo kulmay Ramzi bin Shaybah oo ahaa maskaxdii ka dambeysay qaraxyadii Mareykanka lagu qaaday in uu igala taliyay qaabkan u sameyn doono filimka documentary-ga ah ee Sirriyun lilghaaya. runtii waxay ahayd fikradihiisa kuwa aad u fiican. mararka qaarse waxay ahaayeen kuwa ka badbadisa oo uu dacaayad ku sameysanayay. taana waan iska joojiyay. laakiin si la yaab leh ayaan u arkay mukaalamad ama telefoon la iga soo diray xafiiskaygii Qatar ee Dooxa. waxaa laygu yiri xafiiska aanu ku leenahay Islamabad waa Al Jazeera ayaa nin yimid. waxa uu keenay cajalado. cajaladahaasina waxa uu sheegay inuu ku rabo $17,000. anigu wax culaysa ma saarin mana dhihin cajaladahaas waan u baahanahay. hase ahaatee Al Jazeera ayaga ayaa la dhiilgareeyay oo anigu uma sheegin wax cajaladaha inaan sugayo marnaba. sirta aad baan u qarinayay sababtoo ah ballanta aan la soo galay waxay ahayd mid aad u adag. cajaladihii qaybo ka mida ayaa la ii soo diray oo aan ku daawanayaa xafiiska aan ku leeyahay magaalada London. waxaan fahmay nin la yiraahdo Xasan oo isagu ahaa isku xiraheenii kooxda Al-Qaacida markii aan joogay Bakistan inuu telefoon ii soo diray. waxaana la ii sheegay in ay ii imanayso cajalad. waxaa yimid xafiiskaygii cajaladaasna waxaan gartay markiiba inay ka timid Al-Qaacida. waxaan ku furay kombiyuutarkayga. waxaan doonayaa inaan ogaado waxa ku qoran. waxyaabaha aan ku arkay waxay ahayd qoraal uu qoray Ramzi bin Shaybah.
waxay ahayd xaqiiqdii ugu horeysay qof wariyaha uu gacanta ku dhigo. waxaan gacanta ku dhigay 19 qof magacyadoodii kuwii weerarka ka fulaya Mareykanka. waxaa sidoo kale la ii soo diray qoraal uu soo diray Maxamed Cadda oo ahaa ninkii madaxda u ahaa tiimkii Mareykanka weeraray uu u soo diray Ramzi bin Shayba isagoo ka dhigaya gabar ay wada socdaan oo xiriir uu ka dhaxeeyo. waxaan isku dayay codad meesha ku jiray midkood inaan shido si aan u ogaado qofka uu yahay. codka markiiba waan gartay inuu ahaa Ramzi bin Shayba, hase ahaatee wuxuu ahaa cod la farsameeyay oo la qariyay waxa uu ahaa. waxaan isku dayi doonaa codkan inaan fahmo kadibna aan hagaajiyo si aan cadaynta u helo qofka uu yahay. عصايتين وبينهم شرطة كعكاية منها عصاية مدلاية يعني ايه قلت له ده اللوز. داخل غرفة المونتاج اكتشفت أن رمزي قد تلاعب إلكترونيا بصوت. waxaan ogaaday in codkan uu ahaa mid la soo bedelay editinka lase la qalday. waxaan markii dambe ku guuleystay inaan codka sidiisii saxda ah ku soo celiyo. waxaana dhabtii uu noqday Ramzi bin Shayba oo ahaa ninkii aan kula soo kulmay Pakistan ahaana ninka isku dubariday weerarkii Mareykanka lagu qaaday 11 September. ولم أكن أملك سوى الالتزام به. تعمدت ألا أستخدم صوت رمزي لا في الإعلان الترويجي. aniga mar walba waxa iga go'neyd sirta aan hayo inaan qofna u gudbinin mana isticmaalin qaybihii ugu horeeyay barnaamijka Ramzi bin Shayba codkiisa iyo Khalid Sheikh Mohammed labadaba. waxaan markan guda gali doonaa qaybihii muhiimka ahaa ee aan ku sii baarayno xaqiiqda waxa dhacay. تناقلت وكالات الأنباء وكبريات الصحف هذين السطرين فور إذاعة الجزء الأول. wakaaladaha wararka iyo qaybaha warbaahinta dunida oo dhan ayaa waxa ay hadal haysay hadalkii aan Mareykanka ka sheegay ee ahaa inaan la soo kulmay caqliyada dadkii ka dambeeyay 11 September. jariidada wadanka Ingiriiska ka soo baxda Sunday Times ayaan qoraal ku qoray anoo sheegaya inaan ahay in aan la soo kulmay maskaxdii ka dambeysay Al-Qaacida anoo fasax ka qaatay telefishinkeyga Al Jazeera. hase ahaatee qoraaladaas waxa ay gilgileen dhammaan caalamka oo dhan. كان ثمة سبب إضافي لهذا الاستدعاء. waxaa degdeg la iigu yeeray xafiiska aanu ku leenahay magaalada Dooxa ee dalka Qatar. halkaa ayaan ku soo laabtay waxaana markan la i tusay cajalado aniga la ii soo diray. tolow waxay ahaayeen kuwii 1 milyan la iga doonayay. hase ahaatee raggii aan la soo kulmay Ramzi bin Shayba iyo Khalid Sheikh Mohammed ayaa ii soo diray. hore waxay igu sheegeen in koox la yiraahdo as-saxaab ay editinka samayn doonto oo markaa ay ku jiraan dhammaan dadkii weerarka fuliyay ka hor inta aanay weerarka fulin sawiradooda iyo iyadoo ay baranayaan qaabka taagtiga diyaaradaha loo waro iyo goobaha lagu qarxiyo. dadkan waxay ahaayeen 19 qof ee isku qarxiyay Mareykanka iyagoo tababar qaadanaya. waa arin kale oo keligay aan helay oo ah cid kale oo gacanta ku dhigtay aanay jirin. Al-Qaacida aniga ayay igu soo aamineen anigana sidan baan u ilaalinayaa. ثم أرهفت السمع إلى صوت المعلم. waxaan isku dayay inaan ogaado qofka dhabta ah ee cajaladan al-saxaab ka hadlaya. mar kale waxaan ogaaday inuu yahay Ramzi bin Shayba oo hore iigu sheegay inuu yahay qofka isagu ka mas'uul ahaa oo isku dubariday weerarkii Mareykanka lagu qaaday. kaartada sida diyaaradaha loogu duqeynayo iyo goobaha ay joogaan ayay ahayd. codka ninka ka mas'uul ahaa isku dubaridkii weerarkii 11 September ayaa dhex yaala gudaha telefishinka Al Jazeera xafiiskiisa Dooxa. hase ahaatee cid wax ku og ma leh. aniga kaliya ayaa og cid aan uga sheekeeyana ma jiro. kaliya waxay arkayaan cajaladaha iyo waxa ku jira laakiin ujeedada fog wali waan qarinayaa. بعد نحو 5 أشهر من العمل المتواصل منذ لقائي بزعماء 5 bilood markii aan waday hawshan baaridda
oo aan ku daalay marba saan meel ugu duulayay ayaan mar goostay inaan waxoogaa ku nasto magaalada Dooxa hotel ku yaala si aan waxoogaa nasiino fiican u qaato tolow habeenka maxaa i seexiyay waxbaa soo yeeri doonee في عز الليل كان رئيس التحرير المناوب عرار الشرع tifaftirihii habeenka shaqada ku jiray Munaab al-Ashraawi ayaa ii sheegay hadal aan ka naxay wuxuuna igu yiri waxaa la xiray Ramzi bin Shayba aad baan u naxay argagax badan baa iga muuqday waayo waxaa isfasiray maalmihii adduunyada oo dhan ay ka hadlaysay inaan anigu ahaa ninkii la soo kulmay maskaxdii ka dambeysay weeraradii September tolow intaas oo aan qarinayay armay al-qaacida ku qaadataa inaad sirtoodii ka shiftay cabsi ayaan la walwalay meel aan wax ka bilaabana waan garan la'ahay waxaan isku dayayaa bal inaan wixii aan wax ka qaban karo ogaado Ramzi bin Shayba ayaa lagu qabtay magaalada Karachi إذا ربط بين لقائي به والقبض عليه يا لصعوبة الموقف Allah arintu maxay ugu adag tahay meel aan wax ka bilaabana aan garan la'ahay intaas oo sira oo aan ka soo qabtay al-qaacida waan hayay xitaa saaxiibaday jasiira uma sheegin waxa kaliya aan ka baqaya waxay tahay ninkii aan la kulmay in loo arko inaan anigu basaasay waxay ahayd sheeko aanan weligay ilaabaynin noloshayda cabsida iyo saan u gariiray iyo wax aanan shaqo ku lahayn tolow haddaan shaqo ku leeyahay maxay dhibi lahayd anoo wax luga ku lahayn qabashada ninkaas oo xog badani ay iga dhinayd uuna ahaa nin igala shaqaynayay baaritaanka aan waday ayaa arrimahani ay isfasireen وزعمت أنني خائف من العودة إلى مسرح اللقاء waxaa bilowday in warbaahinta oo dhan ay ka hadlaan wargeysyada qaarkood sida al-Ahram tan iminka ee Masar ka soo baxda waxa ay qortay inay been ahayd wixii aan qoray waxaa sidoo kale jariidad ka soo baxda Lubnaan ay gaarsiisay sida la sheegay Al Jazeera mukhaabaraadka Mareykanka meesha uu joogo Ramzi bin Shayba أما السيناريو الخرافي كله فقد هبط kulligood waxay ahaayeen waxyaabo laga been sheegayay waxaana la sheegayay waxaa ugu darneed jariidad ka soo baxda Sacuudiga oo iyaduna qortay in qanaatul Jazeera ama telefoonkayga in uu ahaa meeshii laga raacay ninkaas oo la qabtay oo maadaama telefoonkayga ay haysteen mukhaabaraadka ama sirdoonka Mareykanka midba mid kale ay ii dhiibtay cabsidu way igu sii korortay laakiin tan baa iigu sii darnayd jariirad kale oo Jarmalka ka soo baxda ayaa iyaduna si weyn u faahfaahisay wixii dhacay kulligood waxa ay xiriir igala sameynayeen aniga oo ay lahaayeen wuxuu kala shaqeeyay sirdoonka Mareykanka sidii ninka loo qaban lahaa تقرير طويل في جريدة الشرق الأوسط عنوانه محققون أمريكيون وباكستانيون يستجوبون منسق هجمات jariidada Sharqul Awsat ayaa iyaduna qortay warbixin dheer oo ah inay baaritaan ku sameynayaan ninkii ka dambeeyay 11 September iyo nin kale oo al-qaacida u qaabilsan dhinaca warfaafinta oo leeyahay Abu Bakar balse iyagu ma ogeyn magaca Abu Bakar inuu ahaa midaan aniga u sameeyay Abu Bakar dhabbay ka dhigeen wax walba hase ahaatee ma ahayn sida ay ka hadlayeen arinta iigu darnayd waxay ahayd koox takfiiriyiin ah oo iyaduna markaa soo bandhigay sawiro hase ahaatee kuwa kale oo al-qaacida iska dhigay ayaa iyaguna qoraal soo saaray oo iigu hanjabay kooxda iigu darneed waxay ahayd kooxdan takfiirka la yiraahdo oo dil ii qortay كان الاحتفاظ برأس بارد خلال ذلك الأسبوع xaalku aad buu iigu xumaaday waxaan doonayaa waxa la faafiyay oo dhan sidii aan uga hortagi lahaa balse weli ma hayo cadeymo cad oo muujinaya in al-qaacida ay tahay kuwa aniga doonaya inay ikharijiyaan ama ay dilaan waxaan sugayaa waxa ay tahay in bayaan cad ay soo saaraan madaxda al-qaacida oo ay ku sheegayaan wixii dhacay
waxaan la tashanayaa saaxiibaday waxaan ku fakarayaa sidii aan ka yeeli lahaa warbaahinta daba dhigatay ee beenta iga abuuraysa mar walba qaarkood waxay igula taliyeen inaan meel kale waxba ku qorin balse aan ka hadlo telefishinka Al-Jazeera barnaamij ka baxaya oo yiraahdo akthar min raay iyadoo saaxiibaday fakarkoodana aan qaadanayo iyadoo markaa ay weydiinayaan sida ay wax u dhaceen waxaan halka ka cadeynayaa in waxa ay qoreen warbaahinta ay tahay mid beena saaxiibaday ayaan toddobaad afka aanan u furin oo markaa aan dhageysanaya aragtiyadooda iyo sida aan arinka uga jawaabayo cabsida way igu sii badanaysay hase ahaatee waxaan goostay inaan barnaamijkan ka qayb galo si aan runta u sheego inaan aniga lug ku lahayn qabashadii Ramzi bin Shayba أن يقفز إلى أذهان بعض الناس هذا الربط لكن أن يوحي أحد غير ذلك يعني حقائق ووقائع الأمور تنفيه وأنا متأكد أن هؤلاء الذين وجهوا لي الدعوة وهؤلاء الذين كانوا حولهم يعلمون تماما ما الذي تم قبل وأثناء وبعد اللقاء ثم رأوا البرنامج بعد ذلك وهم أكثر الناس الذين أطمئن إليهم في هذه اللحظة. سيدة في ثنايا إجاباتي لم يدرك كثيرون أنني قمت بتغيير موعد اللقاء. jawaabahaygu way cadcadaayeen waxayna ahaayeen kuwo aanan shaki ku jirin marnaba in aan cadeynayay in aanan lug ku lahayn qabashada Ramzi bin Shayba walibana aan la kulmay anoo cadeeyay balse wixii aan ku ballanayna in aan markaa aan hayay wixii aan sugayay baa yimid go'aan baa ka soo baxay madaxda sare ee Al-Qaacida xafiiska qaybta warfaafinta ayaa maalintii aan barnaamijka ka qayb galay maalintii ku xigtay qoraalkan soo saaray iyadoo qoraalkan uu ku saxiixnaa Khalid Sheikh Mohammed xafiiska warfaafinta ee Al-Qaacida waxa uu muujinayaa in meeshaas waxyaabaha la faafiyay ee ay yihiin kuwo been ah sida telefishinka Al-Jazeera iyo ustaad Yusri Fuuda wararka laga qoray inay ahaayeen kuwo been abuur ah waxaan qiraynaa in Yusri Fuuda uusan wax xiriir la lahayn waxa dhacayna waxay ahaayeen wax qadarta Ilaahay ku yimid Yusri Fuuda waxaanu la kulannay bisha Safar Abriil waxaana aan kuba la ballanay wixii uu ahaa in ay fuliyo hase ahaatee waxaan u aragnay inuu ahaa nin aamin ah oo ka soo baxay dhammaan sirtii aan u dhiibnay isagoo barnaamijkiisana si cadaalada ku waday waxa dhacayna waxay ku dhaceen qadarta Ilaahay neef baa ka soo foqday Yusri Fuuda برأني خالد شيخ محمد إذن لكنه بعد 5 أشهر من هذا البيان Khalid Sheikh Mohammed aniga waa uu ibari yeelay laakiin markii ay sheekada dhacday 5 bilood kadib anoo hawshii ku jira ayaa magaaladan la yiraahdo Rawalpindi waxa lagu qabtay ninkii ibari yeelay Khalid Sheikh Mohammed isagana ma waxay ku dhacday qaladaad dhinaca amnigiisa oo la dayacay mise qaab kale waxa meeshii ka baxay xiriirkii iyo aragti dambe inaan la yeesho raggaas oo iminka u gacan galay Mareykanka waxaa ka mid ahaa Ramzi bin Shayba oo hore loo qabtay iyo Khalid Sheikh Mohammed labadooduna waxay ahaayeen kuwii aan kula soo kulmay Pakistan oo halka iigu cadeeyay in Al-Qaacida ay xiriirka Mareykanka ama ay ka dambeysay wixii ka dhacay Mareykanka waxaan ka fakarayaa sida aan xog kale oo dheeraada ku heli karo iyo waliba halka aan ka ambaqaadayo waayo labadii qof ee aan Al-Qaacida ka arkay labaduba way gacan galeen oo waa la qabtay waxaan ka fakarayaa sida aan qof kale ula kulmi karo shakigu wuu badan yahay inkastoo Al-Qaacida ay soo saartay go'aan ah inaan anigu wax shaqo ah ku lahayn wixii dhacay انفرط عقد القاعدة madaxda Al-Qaacida waxa ay ku dhuumanayaan godad iyo meelo qariban oo dhulka iyo duurka ah hase ahaatee fakarkooda ayaa fiday waxa uu ku faafayaa dunida haddii xitaa iyaga la qabto ama la dilo waxa ay rumaysan yihiin Mareykanku in fakarkan uu jirayo maadaama uu fiday ثلاثة أرباع القاعدة هذه أرقام لا معنى لها sargaalkan waxa uu ka tirsan yahay wakaaladda sirdoonka Mareykanka
waxaana uu ka hadlayaa in fakarka uu yahay midka ugu xun shakhsigana uu yahay mid la dili karo ama la qaban karo hase ahaatee alqaacida waxa ay ku shaqaynayso inay tahay fakar fidaya oo qof walba si yar ku galaya. في الجزء التالي من هذا التحقيق لقاء المهاجرين بالأنصار. waxaa sidoo kale aanu sii wadi doonaa qaybihii kale ee barnaamijka iyadoo aanu bilaabi doono qaabka iyo sida ay ku dhacday arinta iyo Mareykanka laftirkiisu wax hadii ay jireen inuu ka ogaa in la soo weeraro Mareykanka. waxaan guda gali doonaa inagoo weydiin doona dadka aqoon-yahanada sida Cabdalla An-Nafisi sida uu arko waxa ay Mareykanku aamineen markii dambe oo ahaa in fakarka uu fiday oo markaa iyagu ay noqdeen dad fakar fidinaya shakhsi hadii la qabto ama la dilana aanay wax badan ahayn. madaxweynaha Mareykanka Bush markii uu talada wadanka qabsaday waxay ahayd muran badan oo ka dhashay doorashada iyadoo shacabka Mareykanka ay ku kala qaybsanaayeen guushii uu ka gaaray doorashada. hase ahaatee arinta naxdinta badan oo Bush soo foosartay iyo dawladdiisu waxay ahayd 2 sano kadib in la waayay magaalada New York sarihii dhaadheeraa ee quruxda badnaa ee ku yaalay halkaas iyadoo New York ay noqotay meel masraxa oo dhibaato xoog leh Mareykanku ay ka soo gaartay. xilka 2 sano kaliya ayuu hayay Bush. dad badan waxay isweydiinayaan laakiin ma dhici kartaa waxa kan meesha ka dhacay in madaxweyne Bush iyo ragga dawladda ku jira iyagu xaq jirayaasha loo yaqaano ay arinka ka dambeeyeen. waxaan isku dayayaa markan inaan baaritaan dheer ku sameeyo sida dadka aqoon-yahanka Mareykanka ay u arkayaan inayba dhici karto in Mareykanku ay ku lug lahaayeen. inkastoo aan hayay cadeymo cad oo muujinaya alqaacida ayaa haddana dad badan waxay rumaysnaayeen inay dhici karto Mareykanka laftirkiisu inuu hawsha qabto. hase ahaatee waxa la isweydiinayaa dhibaatada inta la eg dalkiisa ma ku samayn karaa Mareykanka. taas ay aqoon-yahanadu sheegeen inay tahay mid maya ah. waa la ogaa kooxda madaxweyne Bush uu hogaaminayay sida wasiirkiisa difaaca madaxweyne ku-xigeenkiisa Dick Cheney iyo gabadha u ahayd la taliyaha dhinaca ammaanka inay dhammaantood xaq jirayaal ahaayeen doonayay inay la dagaalamaan dalalka bariga dhexena qabsadaan. qorshooda wuxuu ahaa inay dad badan soo qabqabtaan 3,000 oo qof bay dunida oo dhan ka qabteen dad badanna alqaacida bay ku xireen magacooda iyagoo geeyay Guantanamo Bay markii ay dhacday qaraxaas kadib. hase ahaatee waxa aad looga fakaraya waxay tahay ujeedada fog ee ay lahaayeen maxay ahayd. waxa uu soo bandhigayaa wariyaha wuxuu leeyahay intaysan dhicin 11 September ka hor Mareykanku waxa ay soo saareen filinkan oo ay ugu magac dareen dhunkashadii dheereed hurdada ka hor. Diplomat who issued the terrorist visa was CIA. It's not unthinkable they paved the way for bombing, apparently to justify a budget increase. You're telling me that you're going to fake some terrorist thing just to get some money out of Congress? Well, unfortunately, Mr. Hennessy, I have no idea how to fake killing 4,000 people. So we're just going to have to do it for real. Oh, blame it on the Muslims, naturally. That I never funded. iyadoo taas ay jirto oo filinka la sameeyay ka hor inta aanay qaraxyadu dhicin ayaa haddana Al Jazeera waxa ay heshay oo markii ugu horeysay ay soo bandhigtay buu leeyahay dukumeenti ay Mareykanka diyaariyeen kaasoo lagu sheegay saaxiibo Mareykanka uu ku leeyahay Cuba in ay qorsheynayeen inay weeraraan xaruntooda Guantanamo iyagoo gubaya
maqaasiino ay ku jiraan hub diyaarado dagaal soo ridaya kuwo kale afduubaya si markaa loo muujiyo weerar ay soo qaadeen shuuciyadda kuuriyada oo argagixiso ah shuuciyadda Cuba oo argagixiso ah markaana shacabka Mareykanka loo sheego in Cuba ay weerar soo qaaday sidaana Cuba lagu weerarayo shirqool bay ahayd asaate Al Jazeera ayaa soo bandhigtay si markaa shacabka Mareykanka loogu muujiyo in fursad loo helo in la weeraro Cuba iyadoo dhammaan qorshahaasna uu ahaa mid ay Mareykanku dejiyeen saaxiiba Cuban oo ay leeyihiin ayaa weerarka fulinaya si Mareykanka uu jawaab uga bixiyo hase ahaatee qoraagan waxa uu leeyahay taas waxay ahayd sheeko la dhisayay laakiin ma aaminsani in Mareykanku ay iyaga burburinayaan dhibaato weyn oo inta New York ka dhacday oo kalena ay ku lug yeelanayaan haddaba weesha waxa la isla dhexmarayaa Mareykanku qorshayaal buu deji jiray in isaga uu isku sameeyo dhibaato si uu jawaab uga bixiyo danta uu leeyahayna uu u gaaro hase ahaatee tani matiyo kala قبل الهجوم ب4 سنوات إنه إذا لم تهاجم أمريكا كما هوجمت في بيل هاربر فإن الشعب الأمريكي لن يؤيد العمل العسكري في وسط آسيا والشرق الأوسط haddii aanay dhicin in Mareykanka la dhibaateeyo shacabka Mareykanku ma aqbalayaan in Mareykanka uu qabsado bariga dhexe iyo Aasiyada fog taas ayaa marka muujinaysay in Mareykanka qorshe uu degayay ase ahaatee midka Al-Qaacida ayaa markale ka soo hormaray kii uu dejinayay oo mid ka weyn oo dhibaato ah dusha u saariyay Mareykanka صورتها في العالم اهتزت أمنها في العالم اهتز يعني أمنها في نظر الأمريكيين أيضا اهتز فأعتقد يعني عملية بهذه الضخامة لا أعتقد أن الإدارة الأمريكية قراغان وحاوليه عبد الباري عطوان ما آمسني إن Mareykanka si kasta oo ay isu dhibaateynayaan dhibaato inta la eg ayagu isu geysan karaan intan waxa uu raadinayaa wariyaha barnaamijkan diyaarinaya inay dhici karto waxa kan inay been abuur yihiin isagoo haya xog badan بينما كان الديمقراطيون يسلمون الجمهوريين مستقبل أمريكا يقول مسؤول xisbiga dimuqraadiyiintu waxa ay xisbiga jamhuuriga ku aamineen mustaqbalka Mareykanka si looga jawaabo wixii ka dhacay Mareykanka hase ahaatee warbixino ayaa soo baxay oo sheegayay madaxweyne Bush iyo qaar ka tirsan dawladdiisu inay doonayeen ujeedadoodna ahayd inay qabsadaan dalalka hodanka ku ah saliidda sida Ciraaq iyo bariga dhexe oo dhan maalinkii 12 September 2001 ayaa waxaa la sheegayaa in ay dhex mareen madaxweyne Bush iyo madax sare sheekooyin hase ahaatee waxaa mar walba madaxweynaha Mareykanka uu ku adkeysanayay in la ilaaliyo oo markaa si fiican loo baaro in uu ku lug leeyahay hogaamiye sare oo aan Al-Qaacida ahayn bariga dhexe madaxdan waxa ay ka sheekeynayaan sida ay xiriir u wada lahaayeen madaxdan waxay sheegeen madaxweyne Bush inuu madax ka ahaa shirkad naftada samaysa ama shidaalka Dick Cheney sidoo kale madaxweyne wasiirka difaaca isagana sidoo kale gabadha iyana u ahayd la taliyaha dhinaca ammaanka waxay ka shaqeynaysay shirkad batrool dhammaantood madaxda sare ee Mareykanka waxay ahaayeen kuwa shirkad batrool ka shaqeynaya sargaalkanna waxa uu aad ugu ololeynayay Israa'iil in ay sii haysato dhulka Falastiiniyiinta sheekadan waxa ka sheekeynaya ninkan oo ah qoraa la yiraahdo Craig Unger waxa uu ka sheekeynaya xiriirka ka dhaxeeyay Bush iyo waliba qoyska reer Sacuudi ee talada haya boqortooyada Aal Sacuud waxa uu leeyahay ujeedadoodu waxay ahayd inay maadaama dad shirkado shidaal haystay ay ahaayeen inay qabsadaan shidaalka bariga dhexe oo ay si weyn uga taajiraan هؤلاء الذين يتهمون الباحثين عن الحقيقة كل الحقيقة ولا شيء غير الحقيقة باعتناق نظريات المؤامرة ما أسهل أن يفقدوا هم أعصابهم ninkan ayaan wareystay buu leeyahay waxaan wax ka weydiiyay waxa jiray waxa uu ka tirsanaa istikhbaaraadka Mareykanka
waxaan weydiiyey su'aalo ku saabsan inay jireen ujeedooyin Mareykanku doonayo inuu isagu isku sameeyo si uu dadka kale xoog ugu qabsado hase ahaatee wuu carooday waana uu iiga tagay waraysiga taasoo muujinaysa inay wax jireen. أفضل ذريعة وهذا هو ما قرروه من البداية. دعني أسألك، هل كان 11 من سبتمبر بأي معنى من المعاني؟ أنا مضطر للمغادرة الآن. بينما مضى رجال بن لادن في طريق ما عرف بعد ذلك بال11 من سبتمبر كان لابد من أن تؤثر أجندة البيت الأبيض الجديدة في أولوية. waxaa isdaba socday qaabka ay wax u jireen alqaacida oo qiranaysay inay ka dhex baxday sirdoonkii Mareykanka oo burbur xoog leh u geysatay magaalada New York iyo Washington ayaa dhanka kale dad badan waxay ka shakisnaayeen in Mareykanka laftirkiisu uu wax ka ogaa. Philip Gerald ayaa waxa uu ka tirsanaa sirdoonka Mareykanka waxaana uu ka sheekaynayaa in waxa dhacay aysan ahayn wax Mareykanku uu isku sameyn karay ilaa xad intaas. لا أدري إن كان لدينا قبل الأحداث الميل لعمل ما كان ضروريا، وأنت تعلم أنه بعد الأحداث لم تكن لدينا مشكلة مع ذلك. هل كان يمكن إذن أن يتغير الموقف لو مضينا في خططنا للقبض على بن لادن؟ qorshaha uu iska socday mar walba dagaalka alqaacida iyo in la soo qabto bin Laden hase ahaatee fakar ka horeeyay waxa dhacayay oo inta la eg maanay jirin in hay'adaha sirdoonka ku fakarayeen. في ذلك العام الأسود من أعوام أمريكا waxay ka mid ahayd sanadaha madow ee dunida ee soo maray Mareykanka 11 September ama 11 September 2001 Mareykanka ayaa burburay dad badan baa dhintay khasaaro xoog lehna waa ay soo gaareen. يكتب لنفسه هذه الملاحظات: بن لادن وصدام حسين، اسأل وولفوفيتس. كان يكتبها في أجندته لحظة وقوع الهجوم. markii weerarka u dhacay kadib aqalka cad waxaa shir gooniya ku leh maalinkii 12 September qol ka mid ah qolalka ninka ugu sareeya la dagaalanka argagixisada Mareykanka iyo madaxweyne Bush ayaa shir gaar ah yeeshay 12 September waa maalin kadib markii qarax u dhacay. madaxweyne Bush wuxuu yiri si fiican u soo baara arinta cidda ku lug leh inuu Saddam Hussein ku lug leeyahay baa dhici karta si fiican u soo baar. Clark wuxuu yiri ma samaynsiyaad Saddam Hussein ee alqaacida samaysay hase ahaatee madaxweyne Bush waxa uu ku celiyay war ordo soo baar Saddam Hussein waa inuu meel ka soo galaa baash waan soo baari doonaa mar kale ayuu yiri. taas ayaa wariyuhu waxa uu leeyahay waxay cadeen u ahayd madaxweyne Bush in uu doonayay inuu marmarsiyo ka dhigto waxa dhacay isla markaana uu ku qabsado shidaalka gobolka bariga dhexe.